Hey, Elisa! Do you ever feel nervous while speaking English with someone? waxay tidhi Alisa, do you ever feel weliga ma dareentaa nervous khalkhal ama welwel while you speaking English with someone markaad English qof kula hadlayso welwel ama naxnaxdin ma dareentaa? Not really, but why do you ask? gabadhii waxay tidhi not really may xaqiiqdii ama hubaantii but why do you ask laakiin sabamaad ii weydiisay? Well, I'm usually good at speaking English and can even think in English fluently. gabadhii waxay tidhi well hagaag I am anigu usually sida caadiga good at waan ku fiicanahay speaking English ku hadalka Englishta and can even xataa waxaan awoodaa thinking English inaan ugu fakaro English fluently si faseexa. But sometimes when I have to speak, my mind goes blank and I get scared. gabadhii waxay tidhi haddana but sometimes laakiin mararka qaar when I have to speak marka ay tahay inaan hadlo my mind maskaxdaydu goes blank waxay noqonaysaa meel cad oo kale taasi oo ay ka wado waxaan ulaawayaa wixii aan soo wadayba and get scared waana qabsoonayaa. I end up feeling like I can't continue speaking. Have you ever experienced something like that? waxay tidhi gabadhii haddana iyadoo sii wada hadalkeeda I ended up waxaan ku soo dhammaadaa wada sheekaysigeeday sheegaysaa kusoo dhammaadaa feeling like anoo dareemaya sidii can continue inaan sii socodsiin karayn speaking hadalka. Have you ever experienced something like that? weligaa ma ku soo mareen wax saas oo kalaay? I completely understand if you feel hesitant while speaking in a language that is not your native tongue. gabadhii kalena waxay ku tidhi I completely understand gebi ahaanba waa fahmayaa if you feel haddii aad dareento hesitating inaad markaa ka labalabaynayso hesitating waa waxaad diidan tahay inaad samayso kale while speaking kolkaad ku hadlayso a language luuqad that is not your native tongue taasoo ahayn luuqadaadii hooyo. It's perfectly normal to feel that way. Just keep in mind that learning a new language takes time. gabadhii waxay tidhi haddana it is perfectly normal to feel that way waa iska caadi inaad sidaa dareento and keep in mind maskaxdana ku hay that learning a new language dhigashada luuqad cusubi takes time inay waqti qaadato. aad baa idin salaamayaa. I hope you find interest in this video. waxaan filayaa inaad videogan ka heshay like iyo share iyo wixii markaad insha allah channelka aad siin karto waa kaa sugaya.